xukuumadda Somaliland ayaa markii ugu horeysay waxa ay ka hadashay halka uu ku dambeeyay Sheekh Aadan Sunne oo kamid ah culimada Somaliland iyo qoyskiisa oo muddooyinkii u dambeeyay la meel ay jaan iyo cilib dhigeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dhinaca amiga Cabdilaahi Xuseen Maxamed oo warbaahinta kula hadlay caawa magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay in sheekhu gabi ahaanba uu ka tagay Somaliland waxaana uu sheegay in xukuumadda Somaliland ay wado baadhitaan waxaad ogeydeen in dhowrkii casho ee la soo dhaafay miidiyaha iyo baraha bulshada la isla dhexmarayay sheekh la oran jiray in wadaadaha la oran jiray Sheekh Aadan Sunne iyo caa'iladiisii oo la waayay oo meel ay ku eedan yihiin aan la garanayn waxa kale oo arintaasi ka dhashay ama ay dadka qaar ku sii kordhiyeen in xukuumadda uu afduuban yahay oo uu xiran yahay waxa kale oo qaar ku sii dareen waxyaabo kale oo iminka halkan miidiyaha inaanu ka sheegno aanu runtii ka xishoonayno ama aanu dadweynaha aanan waxa dhagahooda maqashiinay halkan waxaan u cadeynayaa dadweynaha Sheekh Aadan Sunne cid kasta oo ka hadlaysa xafiiska amniga qaranka iyo laamaha ammaanka ogaalkay cid ay kala soo xiriireen ma jirto cid ay wax ka weydiiyeen ma jirto wasiirka arrimaha gudaha cid uma iman anigoo ah wasiir ku-xigeenkii amnigana cid ii timi oo iga wareysatay ma jirto Sheekh Aadan Sunne wuu guuray isaga ayaa iskii u guuray cid qasabtay ama ammaankiisa khatar gelisay ama naftiisa iyo caa'iladiisa wax u dhintay ma jirto isaga iskii u guuray caa'iladiisana raray wuu tagay Somalilandna wuu ka baxay waxaanu u guuray koonfurta Soomaaliya sida aanu warka ku hayno Sheekh Aadan Sunne annagu waxaanu aaminsanahay in uu u tagay saaxiibadii uu marka horeba lagu eedeyn jiray inuu afkooda ku hadlo sida awgeed hadda waxa socda baaritaan ballaaran baaritaankaas oo aanu ku baarayno halku maray iyo sida uu baxay iyo cidda ka caawisay ama gacanta ka siisay arintaas baaritaankaasna waxaanu soo saari doonaa haddii alla ka dhigo warbixin dhammaystiran oo ballaaran ayaanu ka soo saari doonaa waxaanse hadda idin xaqiijinayaa ninkaasi inuu isagu Somaliland iskii uga guuray caa'iladiisana iskii uga raray koonfurta Soomaaliyana uu geeyay isaguna halkaa joogo ragga ka hadlay meesha ka hadlay ama meesha fadhiyay qaar ka midi waxay ahaayeen raggii Sheekh Aadan Sunne oo xukuumadda u xiran oo kiiskiisa gacanta lagu hayo iyagu ka damiintay ee xukuumadda ka sii daayay ee yiri annaga meel ku ogaanayna annaga ka war haynayna ee dhaqdhaqaaqiisa iyo wax kasta oo qabanayo inaanu fal amni darraa ku kicin wax dambe oo dhibaato ku ah qaranka Somaliland aanu ku kicin hadda marka ay saa u hadlayaan waxaan u qaadanayaa inay tahay gardaro sababtoo ah iyaga damiintay Somalilandna ka furfuray jeelka ka sii daayay iyadoo uu dawladda u xiran yahay iyaga ayaa laga rabaa halku maray iyo sidoo u tagay geesta kale wasiir ku-xigeenka ayaa waxa uu xisbiga mucaaridka ah ee wadani ku eedeeyay inuu siyaasadeeyay arinta sheekha oo uu si qaldan uga hadlay xisbiga wadani gaar ahaan xogayaha arrimaha gudaha wuxuu ka hadlay isaguna maalin dhaweyd ninka muwaadinka ahaa ee wadaadka ahaa ee Sheekh Aadan Sunne la yiraahdo iyo caa'iladiisa in la laayahay waxaad moodaa sida uu hadlayay inaynu joogno caalamkii qarniyaashii hore aanay dawladuhu ka jirin la isku qafaalan jiray sawir noocaas buu bixiyay waa xisbi qaran mar hadduu yahay waxay ahayd inuu wasaaradda arrimaha gudaha la soo xiriiro oo inta aanu hadal uu war ka raadiyo nalama soo xiriirin nalama soo hadal wuu yaqaanaa wasaaradda arrimaha gudaha
iibaan cismaan cali telefishinka Ariel Hargeysa.